بسم الله الرحمن الرحيم ayaan le waad mahadsantahay mar kale inaad igu soo casuuntay ha noolaato si aan uga warramo waxa dhacay 1989 waxayna dhaceen hal bil oo qura ahaatee bishaas oo ahayd bishii July marka koobaad waxa dhacay dilkii baadariga weyn ee caasimada Muqdisho Salvatore Colombo oo la dilay 9kii bishii July asaga oo ka soo baxay iridda kaniisadda weyn ee Xamar goor galaba ayaa baabuur Land Cruiser laga dhex toogtay xabada ayaa lagu furay meesha ku dhacay safaaradaha ajnabiga ee wadanka jooga dilkiisa waxay la xiriiriyeen maarayihii hargaha iyo saamaha oo taliska militariga ka tirsanaa aadna ugu dhawaa hogaamiyaha militariga hase ahaatee taliska militarigu wuxuu ku eedeeyay sida dokumentiyada ku cad in ay mas'uul ka yihiin dilka Salvatore Colombo waxa ay ugu yeereen xagjiriin islaami ah oo mintid ah ayadoo taa ka duulaya ayaa waxa la bilaabay 14kii bisha July in la weeraray masjidka Sheikh Ali Sufi weerarka lagu qaaday masjidka Sheikh Ali Sufi wuxuu dhaliyay in dadkii masjidka ku dukanay maalin Jimcaad ay gadoodaan gadoodkaasuna keeno in koofi casti laga soo diray madaxtooyada ay dadkii ku gumaadaan kuna xasuuqaan masaajidkii iyo banaankiisiiba waxa magaalada ku sugan oo cilmi baaris u jooga Professor Charles Gashaktar oo ah nin Mareykan ah Soomaali PhD ka qaatay 700 horraantooda waxa aniga shakhsiyan iga warramay inuu codad ku duubayay madaxtooyada deegaandeeda ku yaala markii wax dhacayaan una maqlayay buuqa iyo qaylada iyo sawaxanka iyo carada dadka masaajidka Sheikh Ali Sufi ka soo dareeray ilaa madaxtooyada agteeda yimid ee raba inay meeshii galaan iskuna haystaan ciidankii koofi casta marka 14 Sheikh Ali Sufi markay sida dhacday laba habeen ka hor waxa la qabqabtay 12 bisha oo dhacday labaad ahayd culamaa u diin ay kamid ahaayeen Sheikh Abdirashiid Sheikh Ali Sufi iyo Sheikh Ali Haji Yusuf Hassan oo culamaa u diinka wadan kamid ahaa labada ninna yihiin laba nin oo culamaa u diin waaweyn waalidkood abayaashoodna ahaayeen culamaa u diin waaweyn oo la yaqaano sida Sheikh Sufi iyo Sheikh Haji Yusuf Hassan waxa kale oo lala xiriray oo gooni loo soo xiriray niman siyaasiyiin oo uu kamid yahay abukaati weyna caanka ahaa ee u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda aadanaha ee dhintay Ismaaciil Jimcaale iyo Cabdulqaadir Aadan Cabdulle oo u dhalay madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan marka waa July 9keedii oo la dilay Salvatore Colombo 12kii oo culimada iyo siyaasiyiinta la xiriray 14kii oo dhacday Sheikh Ali Sufi la weeraray waxa loo yaqaano Black Friday jimcadii madoobeed ee dadka la gumaada la xasuuqay saddexdaas dhacdo markay marayso 17kii habeenkeedii waxa la galay oo ciidan koofi casta uu galay xaafadda Casa Balbalaare ee degmada Hodan oo ahayd xaafad ay degan yihiin dadkii ka soo qaxay gumaadkii ka dhacay sanad ka hor gobolada waqooyi galbeed waxa meesha laga soo xiriiray oo banaanka la soo fariisiyay dad ku dhow 1000 qof oo laga la dhaxbaxay 47 qof 47 xubnood waxay ahaayeen macallimiinta jaamacadaha dad u shaqeynaya hay'adaha waaweyn ee samafalka sida USAID waxay ahaayeen dad safaaradaha wadanka jooga u shaqeynayay 47 qof ayaa laga dhax soocay dadkii banaanka la soo wada keenay xaafadda Casa Balbalaare oo ah xaafadda marka hadda wadadan marka almukarrama ka degto oo siigaale aad u degto oo kor u socoto meesha bustaale ayay ku imaanaysaa marka Sheikh Ali Sufina waa isu muuqdaan dhagaxa laga tuuro ayaa ku dhacaya isgoyska Sheikh Ali Sufi wadada Casa Balbalaare dadkaas oo la soo qaaday oo ciidan koofi castu sidaan ayaa waxa la geeyay xeebta Jazeera waxaana lagu furay baas qoriga baron ayaa lagu furay waayo safaaraduhu waxay wareysteen saraakiishii meesha joogtay qaar kamid ah markii habeenka falka dhacay iyo dad askar ahaa oo xukunka u dhow iyo janano ciidanka ku jiray ayay ka qoreen statements say ugu soo diraan wadamadooda oo ay u ogeysiyaan markii baronka la furay xabadaha lagu furay 47 mutacallim oo ahaa labeen Soomaaliyeed iyo dadkii qubarada ahaa wadanku anfaci lahaa waxa badbaaday hal nin oo ilaa maanta nool oo ka badbaaday ninkaas oo mar dambe safaaraduhu say wariyeen
la geyn doono guriga Axmed Saleebaan Daflo ahaan jiray sirdoonka Maxamed Siyaad Barre ahaan jiray marna wasiirka arrimaha gudaha u ahaa mar u ahaa kaaliyaha xogeyaha guud xisbiga Maxamed Siyaad Barre lagu magacaabi jiray xisbiga hanti wadaag kacanka Soomaaliyeed mar kalena ahaa wiilka uu sodog u yahay madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre waxa hadlay oo soo saaray qoraallo ay arinta ku cambaaraynayaan iyo baaritaan ka sameeyay xataa xamar tagay inkastoo baaritaanka meelo badan inay galaan loo diiday iyo dad badan ay wareystaan dadka la qabqabtay iyo dadka goobjoogayaasha ahaa haddana wixii xog ay aruurin kareen aruuriyay labada hay'adood ee ugu waaweyn xuquuqda aadanaha caalamka the Amnesty International iyo the Human Rights Watch reportkoodina waa yaalaa reportka ugu weyn uguna caan baxay wuxuu ahaa kii ay qortay Human Rights Watch oo ciwaan uga dhigtay the government at war with its own people dawlad la diriraysa dadkeedii dawlad gumaadaysa oo duulaan kula jirta dadkeedii marka xasuuqaas dhacay weyn oo gumaadka dadka loogu geystay wuxuu si xoojiyay caradii ka jirtay caasimadda Muqdisho iyo dadka ku noolaa wuxuu si abuuray oo si laba jibaaray nacaybkii loo qabay taliska rejiimka ah ee gumaadka ka soo geystay gobolada waqooyi markaas ay waxaanu ka dhacayaan jasiirana waxa xasuuq kale oo ka socda goboladan Jubbooyinka Kismaayo sida dokumentiyada safaaradaha ku cad waxa 19 Juulaay gurigooda lagu weeraray gurigooda oo jasiira u dhow General Aadan Cabdullaahi Nuur Gabyow oo uu ahaan jiray Maxamed Siyaad Barre wasiirka gaashaandhigga laakiin markaa 3 bil ka hor bisha April 1989 uu ku magacaabay wasiirka dalxiiska intuu wasaaradda gaashaandhigga ka soo qaaday awoodiisina hoos u dhigay iyo wasiirka arrimaha gudaha xilligaas Maxamed Cabdulle Bacadle oo wada jooga gurigooda ayaa galo la weeraray waxaana weeraray oo isla weerarka fuliyay ciidanka Koofi Casta kadib markii ay heleen warar qaldan oo sirdoon loo geeyay Maxamed Siyaad Barre oo lagu yiri inqilaab ayay ka wadaan guriga jasiira ah madaafiic ayaa lagu garaacay guriga labadoodana meesha laga soo xiray kadibna waxa lagu tuuray mid kamida gudadkii dadka lagu xabisi jiray oo loo yaqaan baarista xisbiga sanadka 89 warkiyo kooban wuxuu ahaa sanad ay safaaradaha iyo qubarada Soomaaliya daraasaysa ee saadaaliyeen Soomaaliya inay marayso meel aan ka soo noqon lahayn fiiri waxay dadka Soomaaliyeed ogeyn 89 waxay ku tilmaameen a fragmented country wadan macnaheedu yahay wadan sidii quraarad u kala go'ay waxa aad maanta maqlayso oo lagu leeyahay wadanka kala go'ay federaal uu noqday waa kala go'een dalkii already adduunyadu waxay saadaalisay 89 wadanku inuu quraarad u kala go'ay meel tusbax go'ay inuu yahay ku tilmaameen waa 89 hal bil kadib July August ayay qorayaan marka waa kaas inay jabhadihii sii bateen maalinba jabhad cusub la furay wadanka jabhadihii sii kordhayaan wadanku marka wuxuu qarka u saaran yahay marxalad kala guur ah wuxuu marayaa waxa Faransiisku dhoo kaldasak oo ah darbiya soo celi meel ka noqdo male marxaladii uu ku burbur lahaa loo marayaa maahane hatta sidii loo badbaadin lahaa ayaa adag waatay sanad kadib isku dayayaan marka odayaashii manifesto 15 May inay warqad u qoraan Maxamed Siyaad Barre oo yiraahdaan tartiib markays casil wadanka la badbaadiyo kuwa ku xigeenada u dhiib asaguna diidan yahay hadii marka aniga ahaan as historian waxaan aaminsanahay hadii uu yeeli lahaa sidii wixii ka dhacay Nigeria military regime-kooda wuxuu ku badbaaday oo wadanka Nigeria u burburi waayeen ayagii isbadbedelayay Maxamed Buhari Ibrahim Babangida Sani Abaja Olusegun Obasanjo maalinba mid isbedelay Maxamed Siyaad Barre wuxuu diiday in Xuseen Kulmiye dhaxlo Maxamed Ali Samatar dhaxlo Ahmed Maxamed Faarax dhaxlo Ismaaciil Ali Abubakar saa shaqada u socdo waata uu xiraya Ismaaciil Ali Abubakar iyo Umar Artan 1982 wuxuu rabay inay qoyskiisa inuu dhaxlo waata 86 isqabsadeen familkiisa maama Khadiija ilmaha dhashay iyo Cabdiraxmaan Jaamac Barre waata xukun ku loolameen oo safaaradaha laftirkooda kulli qorayaan annagana waa ku nood gareena buugeeni ay isqabsadeen xukunka la isku dilay maslaxo dhinac ah iyo Cabdiraxmaan Jaamac Barre dhinac ah kuwii golaha ka haray oo markii dambe yaani asaga ku xigeenadu u ahaana ilaa kala safteen oo la kala saftay marka waqtigan dambe ay falkan dhacayaan yaa ciidamadu sareeyay yaa gaashaandhigga haystay wasaaradda gaashaandhigga waxaa jooga Morgan oo gabadha madaxweynaha qabay iyo maslax oo taliyay ciidanka ah taliyay guud ciidanka qalabka sida Maxamed Siyaad Barre ku 69 ka qabsanayay 89 sano kadib waxa madax wiilkiisa maslax oo jaran ka dhigay ayaa haysta marka waxaan dhacayaan jasiira genocide waxaan oo dhanba asaga xukumo meesha booliiska waxa haysta Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gurwade oo ah gabadha madaxweynaha asaguna qaba wixii dhow wuxuu ku soo urureen wax caa'ila ah sirdoonkan wuxuu ka qaaday Axmed Saleebaan Dafle marka Maxamed Jibriil Muuse mar dhexe u dhiibay kadibna ardaya markaan hayay
marka wadankii wuxuu iska noqday wadan caayila ah oo xukunkii uu yahay yani waa ka soo tagay qabiil iyo jufo iyo jilib iyo qaraabo waa ka yimi caayilo maraya marka xidid iyo xigaalo maraya Soomaalidana waa fiirsanaysaa oo wax ka hadli kara ma jiro cid hadashana waa xabsi ku dambeynaysa mugta iyo cid cararto jabhad samaysato wadanka fakatay ahayd wuxuu dhahay ma jirin 86 koor wuxuu ku soo wada wadanka waxa loo yaqaan new patrimonialism inuu isku celiyo wax kala laaluusho oo wixii inta wax say wixii carra dib u soo celi jabhada qaar in wax kala dabar new patrimonialism ku waday waxaan wax kala si legacy uu ka tagay waa wadan burburo ilaa maanta si loo soo kabala laaya ilaa iyo maalinta maanta ah loo soo kabo oo hadda markay naweydiyaan gaaladii maxaa keenay war ilaa halkan wadankan waxaan isku dayaa inaan fahamsiiyo social structure-ka Soomaalida laga dhaxeli karaa dhaqankeeda bulsho kasta dhaqan u gooniye leedahay hadda Ethiopia waa naga dhaqan duwan Ethiopia waa wadan muddo dheer imperial rule lagu hayay oo dadka madax laga soo ciqaabay dadkii loo soo ciqaabay dhaqankoodana muddo dheer oo dheer ay ku soo jireen waxaan waxay aaminsan yihiin oo ku dhaqmaan ayaga oo naga duwan yihiin ninkii meesha qabsada inay iska daba galaan oo waxay aaminsan yihiin falsafad u eg tan Soomaalida hadaan ku turjuno dhahayso ninkii hooyaday guursada waa adeerkay hay xukumo laakiin Soomaali saas kama yeelayso Soomaali dhaqankeedu wuxuu yahay xukunka ay aqbalayso kaliya inuu noqdo labo waxyaabood xukun ku salaysan compromise iyo consensus cid ka yeelaysa male ina iska haysato nin walba waa dagaalamaya ninka Soomaali ah waa dhaqankiisa oo ogta laguma hayn karo xoog waxa kula joogi kartaa kaliya waxa uu ogol yahay wadar ogol feeri maxaa way dhaqankan ah geed hoostiisaan ku shaqeynaa oo geedka nin walba marayo uu soo leexanayo oo talada dhiibanayo egalitarian system waa nin halka maraya iska soo leexanaya gar ka socota hiiraan ayuu ku darsanaa cid haysa male kuma hada jirin kartaan waa dhaqankoodii asaas ah dhaqankoodaas lagu wadi karaa marka oo lagu dawladeyn karaa maahan dhaqan kale oo imposition oo dictatorial ah ma yeelayso horena ma yeelin haddana ma yeelayso ma wuxuu fahmin dhaqanka Soomaalida social structure-ka Soomaali ku dhisan tahay dhaqankeeda oo ah inaysan jeclayn wax dheeraada xukun dheeraada ma jecla taariikhdeeda hore hadda aqrisid hadda qarniyo waxay iska soo rideen Carweelo waxay rideen Geedi Baabow historiadooda hadda fiirisay suugaantooda ka dhaxelaysa maalinba waxay la daala dhacayeen nin dictator oo soo baxay taariikhda fairy legend-ka Soomaalida ma jeclan taariikhdooda iyo dhaqankooda qof iska soo taagan marka Matiyuusan fahmin oo uu jeedaa marar badan uu saadaalay asaga la firkiisana la isku soo noqoneen waa wuxuu ogaa Soomaalidu xukun dictator oo saan oo kala haday ridaan inay muddo dheer qaadanayso inay soo kabsato